بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين راديو كانم عاصمة دبوس عاصمتين برنامج كينا دعويك أدروا مضعي هو عبد السعيد علي فارح عبد المصعب يا الله يرحمه وحنا عاقل كجود دقمة عاري عبدية أما عاقل حتى تكلوا بينا عاقل كجود باشا فكشيني عير قبل كسول بانا هاي أدروا هدي أدلوا يديسي وحوي فكرته يوحنا كان من سنة هاي qodobadii maanta ka soo baxay magaalada Laascaano ayarow qodobadaas ma yahay qodobo anagu aanu nahay faqashinaay aan waaminsanahay ma yahay waxa weeye niman Laascaano jooga oo beesha kamid ah way joogeen laakiin niman daranay ma yahayn niman ku metelaya waxa weeye degmada Ari Cadeeye iyo beesha faqashini shirkaas ku metelaya ma yahayn ayarow qodobadii ka soo baxayna qodobo waxa weeye aad iyo aad uga soo horjeedno aan raalli uga ahayn ayay noqdeen أدارو كل إن الإرادات وعفلنا على التاريخ الأوغيني سنة كي لابد يكون يتضوذي مركي سومال لانتيني معناتها تعرف باشا فقشين يقولوا الرئيسي نبض يكون سيحلام معناتها تقول الرئيسي وحابر جاس كري colaad aad iyo aad u baahsan waxa weeye labada beelood ee dhulbaantay iyo faqashini runtii colaad soo gaamurtay oo ilaa waqtigii ina siyaad darre arlada tan maamulayay ayay ahayd laakiin ciidan nabadeysay adeerin labada beelood ee walaalaha ee wadaagta inay nabad ku wada noolaadaan waxa weeye ka shaqeeyay waxay ahaayeen Somaliland baana keentay in dadku ay wada noolaadaan Somaliland waxa weeye ciidamada qaranka ee Somaliland ayaa horta sababta koobaad iska lahaa Ilaahay ka soko waxa weeye nabad lagu wada noolaado maanta Somaliland ciidamadeeda lahaa marka hadii qodobka ugu muhiimsan shirku sheega Laascaano ka soo baxayna oo ahaa in ciidamada Somaliland ka baxaan waxa weeye taas anagu diid maanu ka muujinay ciidamadu nabadda ay ilaalinayaan wada noolaanshaha dadka deegaanka ayaanay ka shaqeynayeen maalmahan sida aad warbaahinta iyo warkaba la socotaan Laascaano waxa weeye shoobaro iyo qalalaas ayaa ka jiray qalalaasahaas iyo shoobaradaasna runtii dhulbaxante isagu baa waxa isku sameynayay waxa weeye diidanaayeen Somaliland ayaanay waxa iyo dhibaatada dadkooda iyo dalkooda ay u horseedayaan ay u sameynayeen marka anigu mowqifkaygu oo ku metelaya beesha cayr ee faqashini degmada Ari Cadeeye waa inaanan raalli ka ahay wixii ka soo baxay aanan waxa weeye kula socon nimanka dhulbaante ee Somaliland ay hayaan aanan kula socon waxa weeye ciidamada qaranka oo aan muuse ugu baaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo ugu baaqaya ciidamada qaranka inuu soo badiyo ciidamada qaranka inay nala joogaan
ciidamada qaranku waxa weeye inay deegaanka amnigiisa sidii hore ugu sugi jireen u sugaan deegaamada kale ee dhibaatadu ka imanaysana madaxweynaha Soomaaliland waa inuu tallaabo iyo sidii uu nabadda ugu soo celin lahaa uu falgood qabtaa waxay ugu maqaala adeero dhibaatada iyo dilalka aad weydiisay ee lafaanood ka dhacaya adeero waxa boqolkiiba boqol waa la garanayaa cidii dilalka geysatay adeero aniga dhulbahante haddaan nahay beesha fiqishini iyo dhulbahante waa isnaqaana haddii nin dhulbahante iyo nin fiqishin iyo dilo daqiiqadiiba waa la soo qabtaa dhulbahante cidii cid ka dishaa waa yaqaana godobtoodana lama seexdaan marka caqli maaha oo garaad maaha waxa weeye nin lafaanood dhexdiisa lagu dilo dhulbahantaa ayaa la garan waayey dhulbahanta waa yaqaanaa waxaas iyo dhibaatadaasna sidaa adeer igu maqaalaa waxaa ka dambeeya kolley niman waktigiisii aad barana soo jiray maantana waxa weeye dhibaatadaas iyo waxa weeye faqalaladaas wada marka adeer anigu mowqifkaygu waa kaas mowqifka beeshaydaan ku matalayaan adeer waa kaas adeer aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته